ugu horreyn waxaan jeclahay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan macali axmed waxaana aqoon-yahan soomaaliyeed ilaa 1986 waxaan ka shaqaynayey waxbarashada dalka ayaan ka shaqaynayey waddanka waxaan ka aasaasnay iskuullo hoose sare jaamacado aan ka samaynay dhammaantood waa shaqaynay ilaahay fadligiisa dad badan oo boqolaal kun oo soomaaliyeedna ilaahay uu kaga faa'iideeyey waxaan kaloo ka mid ahaa muddo dheer hogaamiyaasha bulshada rayidka soomaaliyeed gaar ahaan hogaamiyaasha bulshada rayidka koonfurta bartamaha soomaaliya oo aan ka soo noqday madax waxaan u ahay xoogaal waxaan ahay shaksi aqoon-yahana oo waddankan 30 sane ee mushkiladu ka jirtay intaba la noolaa ku dhex jiray bulshada xaalad kasta oo la soo marna xoogaalo ah duruufaha bulshada soomaalida haystana si fiican uga warhaya mudan yaal marweyn xubnaha labada aqal ee sharafta badan dalka soomaaliya wuxuu ilaahay dejiyey mandiqad aad u istiraatiiji ah oo leh ahmiyad fara badan oo dhaqaale iyo siyaasadeed dadka soomaaliyeedna waa dad aad u firfircoon eebbaweyne ku manaystay firfircooni geesinimo hal abuur adkaysi isku day joogta ah inay ku maareeyaan noloshooda xilli kasta oo adag balse ilaahay ma qadarin hadda ka hor dadka soomaaliyeed karaankoodii dadnimo iyo dowladnimo inay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay waxaa dalkeenna ragaadiyey dhibaatooyin dhanka hoggaaminta ah haddii aan la helin hoggaamin toosan oo sharci u hagayo kana sarreeyo dowlad wareerka adduunyada naga reebay wuu sii socon doonaa dadkayga soomaaliyeed waxay u qaybsameen kuwo dibadda u qaxay kuwo gudaha ku barakacay kuwo wajahaya faqri daran gaajo caafimaad darro waxbarasho yaraan iyo shaqo la'aan iyo qayb la nool cabsi iyo welwel dhanka ammaanka si joogto ah haddaba su-aashu waxay tahay xaaladda caynkaasa intee ayaan ku sii jiri karraa taagtii iyo taladii miyaa naga dhammaatay mise tacaddi kale baa jira hoggaan wareerka iyo sidii iska dawareegga ahaa ee dalka lagu xukumayey sannadihii la soo dhaafay waxaa ka dhashay caqabado waaweyn oo khatar ku ah dowladnimada iyo dadka soomaaliyeedba caqabadahaas waxaa ugu waaweyn isqabqabsi joogto ah oo u dhexeeyey labada heer ee dowladda ilaa 12 sano oo dadka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliya qaatay federaalka waxaa ka dhexeeyey labada heer ee dowladda sijiid arrintaasna waxay ka dhalatay hoggaan xumo ayaa sabab u ah qabyotiri la'aan dastuurka waxaad ogtiin 10 sano ka badan dastuurkeenu waa qabyo inta dastuur qabyada yahana dowladduna waa qabyo waxaa laga cabsaday ama laga gaabsaday in la dhiso maxkamaddii kala saari lahayd heerarka labada heer ee dowladda ee maxkamadda dastuuriga ahayd waxaa baahsan cadaalad darrada hay-adihii garsoorkana waa la dhammaystiri waayo waana la siyaasadeeyey adeegyadii bulshada meesha waa ka baxeen waxbarasho caafimaad koronto waxaa jirta in ka badan 3 milyan oo ilmo soomaaliyeed oo aan maanta waxbarasho haysan ilmaha soomaaliyeed boqolkiiba 33 ayaa iskuulka tagaa inta da'da iskuulka gaartay amni xumo ciidamadii waxay ku muleen siyaasadda waddanka waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo booliis leh military leh nabad sugid leh iyo kuwa ajnabi ah laakiin qof kasta oo naga mid meel baa cabsi kula jira waxaa lumay hoggaamintii ciidamada iyo tii dalkaba musuqu waa baahay hay-adihi accountability-ga ee sida baarlamaanka iyo hantidhowr wixii la mida waxay iska noqdeen kuwa oo magac u yaala oo aan waajibaadkii laga rab aan qabsan karin hoggaanka jira waddanka ogiis hay-adihii dowladda shaqadooda isdhex gashay baarlamaankii hay-addii fulinta iyo garsoorkii way isdhex galeen ilihii dhaqaalaha waddanka waa la dayacay beero xoolo bad deegaan iyo dhir intaba dayac weyn ayaa soo wajahay kaabayaashii dhaqaalaha waa burbursan yihiin waddooyinkii garoommadii dekedihii kanaaladii warihii wixii la mid ahayd wax in lagu soo saaro shaqola'aan iyo faqri iyo gaajo ayay wajahayaan dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhallinyarada ah oo waxbartay haddaba si aan u helno xal dhibaatooyinkaas ay wajahayn dadkeennu waxaan u baahannahay inaan dib isku abaabulno si aan dowladnimadeenna iyo dalkeenna uga hor wareejino dhibaatooyinkaas aan soo sheegnay xalka ugu muhiimsan ee dalkeenna aan ka saari karnaa dowlad wareerka waxay ugu horreeya doorashada hoggaamin toosan oo karti leh waxaa la yidhahdaa fish rots from the head mar haddii hoggaanka waddanka ugu sarreeya ama dadkii waddanka hagi lahaa
taladoodu ay isku dhex yaacdo waddanka intiisa kale lama saxmi karto marka la helo hoggaamin hufan aragti qaran leh xogogaal ah baahiyaha dalkeenna uu qabo dowlad wanaagsan oo ayaa dalkeen noqon karaya dal xasilan degan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan nabdoon khayraadkiisa laga faa'iidaysan karo nabad iyo deris wanaag kula noolaan kara waddamada deris kale ah waxna la qaybsan kara adduunyada inteeda kale mudanayaal marwooyin senatarada xildhibaan sharafta leh haddii aad ii doorataan qabashada hoggaanka dalka waxaan la imaan doonaa dhaqan hoggaamineed ku dhisan iskaashi iyo wada shaqayn si aan hurgelinno mabaadi'deenna isbeddelka our principles for change oo halkaani kuu sheegi doono si waafaqsan shuruucda dalka waxaan wax ka qaban doonaa ugu horreeya horumarintan nabadda iyo amniga waxaad ogtihiin waddankeenna dhibaatooyin fara badan ayaa la soo darsay waxaad ogtihiin qof kasta oo soomaaliyeed wuxuu qabaa cabsi waxaan si buuxda u tababari doonaa u qalbayn doonaa ciidamada qalabka sida waxaan heshiis ugu baaqi doonaa al-shabaab heshiis qur-aanku wuxuu yidhi wasulxu khayrun heshiis ayaan ugu baaqi doonaa waxaan hirgelin doonaa cadaalad waddanka hirgelin doonaa waxaan la dagaalama musuqmaasuqa dhammaan waxaasi waa backage isku xiran oo ammaanka qayb ka noqonaya inta cadaalad dar jirto ammaankuna ammaan sax ma la helayo intay jirto musuqmaasuq iyana waa la mid waxaan xoojin doonaa hoggaaminta hay'adaha amniga ayaan tayin doonaa haddii la yidhaahdo waxaan ka shaqaysiin doonaa ama aan meel marin doonaa heshiisyo ay ku wada shaqaynayaan labada heer ee dowladda si laysa kaashado sugidda amniga labo dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha federaalka habeetirkas dastuurka muddo kooban baan samayn doonaa haddii la yidhaahdo waxaan dardargelin doonaa dhisitaanka hay'adaha dastuuriga dastuur ku qoran qabyo qoraalka dastuurka waxaan isticmaali doonaa aqoonyahanka soomaaliyeed waxaan xoojin doonaa ka wada qayb qaadashada dhammaystirka dastuurka haddii la yidhaahdo waxaan dardargelin doonaa wadahadallada soomaaliya iyo somalilan arrinta somalilan waa arrin masiiri ah waxay noo leedahay ahmiyad aad u weyn waxayna mudan tahay in la wajaho si dhab ah wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan waxaan aaminsannahay inaan weligeedba si dhab ah aan loo gelin haddii rabbi qadaro waxaan samayn doonaa ajendayaal cadcad oo wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan ajendayaal baan u samayn doonaa wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxaa kaalin mugle ka qaadan doona xildhibaanada siyaasiyiinta aqoon-yahanka ka soo jeeda somalilan waxaan dhisi doonaa guddiyo u xil saaran wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyadoo la tixgelinaya aragtida aqoon-yahanka iyo dhergarka soomaaliyeed inta wadahadallu socdaan arrinta somalilan waxaan u dhaqmi doonaa si walaaltinimo leh oo horseedi karta dhisidda kalsoonida labada dhinac dhexdooda ah mana siyaasadayn doono arrimaha isaga xihan labada dhinac princibalka saddexaad ama mabda afraad waa dib u habaynta cadaaladda iyo hay'adaha garsoorka waxaad ogtihiin cadaaladda maanta waxaa loo doontaa shabaabkaa loo doontaa maanta cadaaladda duurkaa loo aadaa waxaan ka bilaabi doonaa dhisidda cadaaladda station booliiskan ka bilaabi doonaa ilaa maxkamadda waxaan madax bannayn doonaa hay'adaha garsoorka madax bannaan sii doonaa waxaan ka saari doonaa siyaasadda waxaan abuuri doonaa waxaan xoojin doonaa tayada xirfadaha booliiska iyo dembaarista shan horumarinta waxbarasho taya leh waad ogtihiin waxbarashadu waa furaha nolosha marka dadku helaan waxbarasho baahsan ayay noloshooda qaabayn karaan waxaan gaarsiin doonaa waxbarashada mintuulo ilaa degmo ilaa caasiad baan gaarsiin doonaa waxaan dhisi doonaa iskuullo fara badan si dadka soomaaliyeed ay wax u bartaan waxaan dayactiri doonaa kaabayaasha adeegyada bulshada waxaad ogtihiin adeeg caafimaad waddan kama jiro waxaan dayactiri doonaa cisitaallada mchada waana ku baahin doonaa dalka oo dhan si dadka soomaaliya u helaan basic healthcare ama primary healthcare waxaan diyaarin doonaa hannaan doorasho ku habboon oo qof iyo cod ah waad ogtihiin doorashooyinka la soo maray dadku waa ku dhibtoodeen dalkuna waa ku dhibtooday dhibaato badan baa kala soo daristay waxaan samayn doonaa biidnillahi alkariim doorashada tan xigtaa inay noqoto doorasho qof iyo coda waxaan iska shaqayn doonaa inaan soo saarno madaxweyne inta aan dhammaanin annaga teeramkayo oo aan soo saarno president elect oo dhinac taagan oo maamulka iyo dowladnimada tartiib ula wareega
أنا وحنيس دونا وحلو يقانو دقالها وحلو يقانو economy for all inclusive economic growth waxaan ka shaqayn doonaa dadka Soomaaliyeed inay dhaqaalahooda u wada koro oo aan dad kaliya aan dhaqaalahooda aanu gaarin waxaan xoojin doonaa shaqo abuurka waxaan xoojin doonaa private sector kan xoojin doonaa waxaan xoojin doonaa xirfadaha iyo tiknoolajiyada sababaya dadku inay dhaqaale abuuraan hagaajinta dawlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga siyaasadda arrimaha dibadda mabda'a noogu horeeya wuxuu yahay dariskeena kowno ah our neighbors conference dariskeena ayaa kowno ah waxaan u baahnaa dariskeena inaan la ganacsanno inaan xoojinno transport chain mobility ganacsiga ka gudbaya xuduudaha inaan kordhino dadka waa ganacsato waxaan u baahnaa inaan helo siyaasad degan oo aan daris kula macaamilo si dadkeena ay ula ganacsadaan waddama dariska ah dariskana la ah waxaan kor u qaadi doonaa ilaalin doonaa xorriyadda warbaahinta xorriyadda qowlka iyo xuquuqul insaanka xadgudubyadaasoo dhan waa kor dogi doonaa haddii ilaahay idmo mudan iyo limarooyin 40 sano ku dhowaad oon ka soo shaqaynayay arrimaha horumarinta bulshada iyo qaramada dowladnimada iyo maamul wanaagga waxaan xaqiiqsaday in hogaaminta toosani ay ugu horeyso waxyaabaha keeni kara isbeddel togan oo suuro gelin kara dib u dhiska dalka iyo ka bixitaanka dowlad wareerka muddo dheerna haystay mudanayaal haddii xilka culus ee hogaaminta dalka aad igu aamintaan waxaan la imaan doonaa isbeddel dhab ah oo ogaal ku dhisan lehna ujeeddooyin cadcad iyo filasho mangala kuna dhisan aragti iyo talo wadaag insha allah walaalayaal waxaan hirgelin doonaa xanaan dowladeed la aamini karo leh karti iyo hufnaan isla markaana ka hortegi kara kana dhowrsan kara hanti boobka fikir kooxaysi ku dhisan iyo adeegid dana shisheeye waxaan xoojin doonaa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka dhammaan hay-adaha dowladda waxaan kor u qaadi doonaa haybadda iyo adeegga xildhibaanada qaranka waxaan dabooli doonaa baahiyaha nololeed si joogto ah xildhibaanada qaranku ay ula xisaabtamaan dowladda qaybaheeda kale la xisaabtanka ugu xooggan waxaa lagu samayn doonaa madaxtooyada iyo madaxweynaha waxaa jira waxa la yidhaha leadership by example waxaan aaminsanahay in xisaabintu ay ka bilaabato madaxda dalka ugu sarreysa xafiiska dalka ugu sarreeya ayaan aaminsanahay waxaan ogolaan doonaa waxaan ogolaan doonaa in aniga iyo aan tusaale u noqdo la xisaabtanka waxaan aaminsanahay xadiiskii ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati inay waajib tahay qofka mas-uulka in la xisaabiyo waxaa la yidhaha gacmo daahira baa wax daahiriya markii qofka mas-uulka ogolaada xisaabtanka ayuu isaguna wax xisaabin karaa ugu dambayntii mudanayaal walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad codkiinna qaaliga ay siisaan iyo ogolaataan inaan u adeego dalka iyo dadka si daacadnimo ikhlaas iyo ammaano ku dhisan waxaan soo dhisnay hay-ado fara badan oo ummadda anfacay oo ay wax ka barteen boqolaal kun ardaya waxaan ku soo dhisnay tala wadaag waxaan ku soo dhisnay wadatashi waxaan ku soo dhisnay ikhlaas iyo ammaano waxaan rajaynayaa tan guud ee dalkana sidaasoo kalena ugu dhisi doono aad baan idinkaa mahad celinaya siday sharaftii dhegeysteen